siyaasiyiinta mucaaradka ah intoodii badnayd waxaan isku afgaranay qodobada masiiriga ee dalka maanta ka jiraay in hore loo dhaqaajo oo ay ka mid tahay dhamaystirka dastuurka iyo dalka laga sameeyo doorasho qof iyo cod ah oo ku salaysan xisbiya siyaasadeed baarlamaanka sharafta leh mudanayaal marwooyin baarlamaanka sharafta leh waxaa in badan ka soo wada shaqaynay oo aad ansixiseen in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay toos u soo doortaan shacabka Soomaaliyeed hase yeeshee markii aan isbarbar dhignay inaan qayb ahaan ka tanasulno wixii lagu heshiiyey iyo inaan diidno waxaa nala habboonaatay inaan tanasulno waataan horey u soo sheegay mushkiladda ma aha khilaafka oo ah kala duwanaansho ra'yi ee waa sida hadba loo xalliyo khilaafka waxaan dooranay khilaafka inaan ku xallino wada hadal iyo is-afgarasho iyo isku tanasul waxaan rajaynayaa inaad idinkuna nala aqbashaan haddii alla yidhaah waxaan weli daba soconnaa kuwa weli wax diidan ee tabashada qaba waxaan kalsooni ku qabaa in bisaylka dadkeennu uu soo gaaray meel aan laga celin karin doorasho qof iyo cod ah haddii ay weli jiraan kuwo qaba ama ku riyoonayo doorashadii dadbanayd waxaan filayaa inay jawaabta ka helayaan malyanka codbixiyayaasha ah ee iska diiwaan geliyay gobolka Banaadir